السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وأنا سلام ميل كستا أدون كجوكتين وأنا جوا فرحية فلوج channel كان يجلس وأنا جوا فرحية حسن channel كان يجلس وقتين وفرحية فلوج so وحاولنا برنامج آدي وحساسي برنامج كاس أو قبل بدن يسوقيان يا ربان قف أوجا جوابه ويل البدن معي كان سيدوك يسوقيان ربا قف أوجا جوابه إن برنامج كاس عاو حد دادهنا يعني جوا فرحية يعني جوا محمد علنسي يا اوكي ماشي حتى انا فملك على سيده ان كسو دواده برنامجكاس waxaa waaye noo sheeg maxamed maxaa barnaamijka intaan u gudagelin ka hor waxaan ka rabnaa asxaabay inaa channelka flow graysaan like saabtiin subscribe ku qabataan commentigana aad hoos noogu soo qortaan oo wixii talooyina wanaagsan oo fiican oo maxaa lahaye toosin iyo hagaajin ku jirto aad noo soo qortaan anaguna aan ka qaadanayna mahadsantiin asxaabteena barnaamijka ama aad noo bilowdaa waa bilaabi karaa barnaamijkeen wuxuu ku saabsan yahay laba su'aal oo aad u adag yihiin su'aalahan waxaa weyna culusiin miisaankooda wataan haddaan ii sheego waxaa su-aasha koowaad ani rabo inaa weydiiyo maxamed mid asa ay weydiinaya midna anaa i weydiinayo taa ani weydiinayo waxaa waaye why ragga Soomaaliyeed dumarkooda markay isguursadaan all that relationship wadadaas dheer ay soo maraan wixii la isku daro arrangement marriage haddii rabaan ahaadaan dad isjeclaado relationship soo sameeyo guri samaystaan gabadhooda xaaskooda markay isguursadaan si qurux badan oo ilaahay meesha ubad ka keeno 2 cunug 3 cunug 4 cunug 5 cunug markay u dhasho waa inaa kala oga daba keenaan maxaa ku qasbay inay naa kala guursadaan iyo sidoo kale dhinaca ragga iyadoo diinta islaamka ay banaysay in ragga muslimka ah ay guursadaan 4 naagood maxaa keenay gabdhaha Soomaalida ah inay diidaan in xitaa hal xabo la guursado maxaa lahaye oo ayagu ay dhinacooda mamnuuc ka dhigaan iyadoo Ilaahay oo ogolaaday waa maxay sababta keenayso inay diidaan ya sababta keenaysa inay dumarka diidaan iyo sababta keenaysa inay ragga guursadaan okay dumarka inay diidaan ana ka jawaabayo inta maxaa dhigi jiray gradkayga si kama wada jawaabi karo because dumarka oo dhan different qof kasta gabar kasta waxay aaminsan tahay si aniga waxay leedahay saas la guursan karay midaaba iskarabto actually ma ogi waxay ku rabtaa ayada xataa mida diidan waxay ku diidantay ma ogi laakiin aniga inta yar aan isla yahay saas lagu diidi karaa asaga marka weydiinayna waa ee ragga maxamed dumarkooda oo la guursadaan ayagoo ama jacayl isku guursadaan ama waxay rabaan isku guursadaan maxaa keen dhibka u keenay inay naa kala guursadaan maxay tahay marka horta waxaan ka hadli karnaa waa dadka Soomaalida iyo dhaqankii Soomaalida aan haysanin hore iyo dhaqankaas oo ku lamaansaneed diinta islaamka oo anaga base iyo asaas noo ah marka horta waxyaalo fara badan jiri karo dhinacyo kala fara badan oo kala jiri karo dad barnaamijkaas ku aad u khibrad ugu laho ka sheekay karna way jiri karaan laakiin ani ahaantayda markaan dhaqankii Soomaalida iyo aan isi saaro iyo dhinaca diinta islaamka waa isi saaro waxyaalo badan ayaa keenayo ragga Soomaaliyeed waagii hore oo dhaqankii hore ahay ilaa haddana jiri karo oo maxaa lahaye la soo salguuri karo ama dhaxal ku imaan karo inheritance ku imaan karo wuxuu ahay in ilmo fara badan la dhalo waan la iskugu fahmin jiray in ilmo fara badan la dhalo oo nin walba intuu ka ilmo badan yahay ama ka wiil badan yahay ama ka gabdho badan yahay ayuu markasta ka hormarsanaa ama laga xushmay ogaa ragga qaar waxaa jirtay waagii hore hadduusan 2 xaas lahayn xataa la hadli jirin hadduu 3 lahayna goobta shirka ama lagu shiraayo soo ma fariisan jirin hadduu 4 midkaan lahayna garta meesha ugu dambaysa ma gooy jirin dhaqankii noocaas marka maxaa lahaye noocaas ku salaysnaa ayaa wuxuu inta badan keenayay in Soomaalida maxaa lahaye ay inta badan ay isla xaasas badan guursadaan ilmo badan ay dhalaan iskugu faano oo dhaqan hirgalay ayaa laga dhigay horta kow midaas way keenaysaa صح midda labaad oo ayadana pointiga kale oo weyn ah waxa waaye dhinaca islaamka oo dadka Soomaalida ay yihiin dad muslimiin ah diinta islaamka la haysto marka
ayagana diintaas islaamka oo ay haystaan ayaa waxay faraysaa oo dhiirigelinaysaa oo ilaahay subxaana watacaala oo amray in 4 naagood ama 4 xaas aan dhaho haddaan naag ka daayo 4 xaas in la guursado ayuu ilaahay subxaana watacaala uuna faray rasuulka cala salaamna uu yiri markii uu sharaxayay xaasas badan guursado ilmo badan dhalasaan ummadeyda u badisaan aniga qiyaamaha markaas kugu shirtago marka diinta islaamka oo 4 ogolaatay iyo dadkii Soomaalida oo dhaqankii haystay noocaas ahaa ayaa isbiirsaday saas ayaa keenayso in ragga ay guursadaan labadaas horta laba qodob ugu waaweyn oo waliba diintu wixii Ilaahay uu yiri xigmada ku jirto maaha waxa iska bilaasha mid kale oo saddexaad asleeyahay soo raacay kartaa waxa waa markii magaalooyinka la joogo ninkii laga yaabay asagoo xogaa aan awoodeeda lahayn inuu ama naag kala guursado ama meel kale aado taas aniga waxaan is dhihi karaa waxa lagu ciladay karaa gabdhaha xaggooda oo gabdhihii inays waxaa laga yaabaa waajibaadkii ay iska soo bixi waayaan carruurta hala kala garay ha ahaato maxaa lahay ka warqabka odayga xaafadda iyo waxaas dhan ha ahaato ama adiga ila moogtahay markii laba qof isguursadaan qofna arrimaha gudaha ka shaqeynaa qofna arrimaha dibadda ka shaqeynaa sida Soomaalida dhaqankeeda oo ahaa marka waxaa dhici karto in gabadha dhinaceedii oo dayac ka yimaado dayac markuu ka yimaado oo dhinaceeda ku filnaawayso qofkaas oo meel uu ku nasto guriga meel lagu nasto meel uu ku nasto markuu waayo waxaa dhacayso marka inuu ku fakaro inuu meel kale oo uu ku nasan karo uu raadiyo marka aniga taa pointkaas saddexaadna waa laga hadli karaa laakiin waxaa is leeyahay ayada ruuxeeda point weyn waayo tii saddexaad mid horta kulligood su'aala kaaga soo wada celina saddexda boonti midda saddexaad aan ka bilaabno midda saddexaad waxaa dhahday waxaa keeni karaa dhahday in islaantii ama gabadha xaaskiisa ay waajibaadka kasoo bixi weyso hadday noqon lahayd caruurta ka taxadarkooda hadday noqon lahayd guriga inuu relaxing ka waayo isdhihi kartaa gabadhi waaba kasoo bixi weyse waa dhahana gabadhi way kasoo bixi weyse meesha ilmaa yaalo ninkii wuu baxay naag kale uu raacsaday naag kale guursaday ilmihii ay gabadhi wuu arkay gabadha inay meeshaan daciif ka tahay ee lazy ka tahay inuu caawiyo soo meeheno ilmihiisa haddii gabadhi saas ay noqoto ilmihiisa uu teegareeyo ilmihiisa la dadaalo habeenkii markuu imaado haddii homework noqon lahayd haddii dhinaca akhlaaqda noqon lahayd haddii dhinaca diinta noqon lahayd haddii salaada noqon lahayd ilmihii inuu u kiciyo soo ma fiicna inuu saas sameeyo barnaamijka noocaas wuu fiican yahay laakiin hadda adiga mawduucan ka hadlayna mawduuc kale ayna gashay mawduucaas wuxuu u baahan yahay mawduucaas wuxuu u baahan waxaa waaye raggu way dayaca inta badan xaggooda uga yimaadaa marka taasna waxaan malayna waa barnaamij dheer haddaa faahfaahintiisa galno waqti dheer ay qaadanaysaa inkastoo ragga Soomaalida la isku qaban karin inkastoo ragga dhan la isku qaban karin oo aan la dhihi karin kulligood waxbay dayacaan oo anaga dhan aabayaal soo koriyay gabdhaha arkayso kulligood aabayaal soo koriyay cid kasta waxa waaye aabayaal taxadarkoodu oo sareeyo ayaa soo barbaariyay marka ma dhihi karno kulligood iskumana qaban karno inkastoo dayaca meelaha qaar uu ka yimaado marka laakiin taas gooni waa hadii doonaa laakiin adiga ayaa soo hartay may su'aalahayga meesha dhamaaneen labada hala ku weydiin laba isii ciila qabtaa ciil ma qabi waxaa gabdhaha inaa xoogaa at least meesha ay wax yar ka fahmaan aan ka jaahil bixiyo maadaama aan nimanka u taagantahay still su'aasha saddexaad ku weydiin waxay dhahday weli xataa jawaaba ku qancay maadii dhimkus aan waxaan ku dhahay ilmihii maadaama hooyadii uu asaga ooga cararaay inay lazy taho waajibaadkeeda kasoo bixi weysa hadduu kasii tagso ma kasii darayso intaasaa ka wadaa su-aasha haddaa kusoo koobo wasaan kuu sheegay dadku isku wada mid maahan laga yaabay kuwa oo garaadkooda yar yahay inay sameeyaan kuwa waxgalana way jiraan oo ilmahooda iyo wuxooda dhankeeya garayo taasaa ugu gudbay horta gabdhaha dhan way ogyihiin maanta gabaraa ogeen ma jirto in nin 4 naagood loo baneeyay gabaraa ogeen ma jirto gabar kasta way ogtahay ilaahay wuxuu ku baneeyay 4 inaa guursato laakiin ilaahay kaagama dhigin hal xaba xataa inaa guursato waajib kaagama dhigin ilaahay guurka wuxuu ku dhahay waa wax fiican laakiin waajib meel lagu sheegaa ma jiro guur waajib hal naag xataa inaa guursato waajib kuguma laakiin ilaahay wuxuu ku baneeyay 4
afar adoo lagu banay hal xataa waajib kuuma so gabadhii ama jecel isla soo marteen ama waqti isla soo qaadateen ama si kastaba isku hesheen adi is hesheen in aa u tanaasusho oo maadaama ay gabadhii ay ku jeceshay ee maseerayso heerkaas qofka markuu maseero waa qof ku jecel qofka ku jeclaan seriously kuuma maseero okay gabadhii hadee aad dareemayso inay ku maseerayso ku waalanayso wax kasta ee darta u sameynayso ogta inay ku jeceshay ay ku maseerayso way aa uga tanaasulweysay gabadhaada xaaskaada hore oo ilmahaadii xaaskaada hore u haysan waayeen wiil nimanka saa sameynaya ka hadlayna oo guula guursanaya miya ma u tanaasuli karaan miya xaaskooda jecel u maseerays ma u tanaasuli karaan miya waa kuu sheegay markii horeba maya hadda haddii feri caring woman ay tahay oo maxaa lahaye qof dhinaceeda ka dhammaystiran oo inta badan maxaa lahaye aad iyo aad u kaya garanayso familkeeda iyo ninkeeda iyo gurigeeda iyo familka ninka iyo waxa dhan isku wada hadday tahay hooyo loo bogay hadday tahay inta badan lama guursado waana loo tanaasulaa laakiin haddii ay ayadu dhinaceeda oo xumaan ka timid caajisley subaxii aan kicin iyo waxyaalo fara badan aan rabin inaan ku daro hadday tahay oo mid sariirta iska jibto iska riinta ah hadday tahay definitely waa imaanaysaa marka dambe in lala guursado taas marka taasaa xoogaa dhibaatada israaxiixa ayaa keenayso okay waxaa la sheegaa dumar maasha allah ee gaariyaal ee xaajigooda ilmahooda gurigooda maasha allah it is the same time lala guursado see ku dhacday qadar ilaahay ku dhacda laakiin ilaah hawa san hore kuu sheegayo dhaqankii hore maba diideynaba aniga horta tii ilaahay banay ani maba kasoo jeeda laakiin waxaa taagana ilaahay waajib kama dhigin ilaahay wuu banay waajib taada u nimaano farxiya waxbaha gelgelin taada u nimaano waay halkaas ku xigtaa sababta ilaahay isagoo baneeyey oo maxaa la diinteena okay أنا سؤالك لا وطا لكن باتياش كلا كسر الدنيا إن شاء الله واي أدينك أو دينته أقشهاي محل بهاي إله أقولي هاي وإلهي وحلالي وح إلهي حلالي واي وحالن تلميذين أو ضدك ورد جالسين وجورك حتى هالحبة اللي نقدر رافض عاوز كده وقولي سبب okay horta aniga waa kala qaadaya laba meel oo kala qaadaya maxamed nahdaa waa weydiiyay waxaan dhahay waa ugu tanaadulay oo uu sheegay wuxuu dhahay inay lazy ama adikeer la'aan qof dhinaca dumarka culayska imaada darteed aan loo guursadaa ayuu dhahay okay gabdhaha qaarna waxay aaminsan yihiin in ayadoo culays jirinba uu ninka iska baxo okay aniga marka su'aasha ay weydiisay waa gabdhaha u diidaan okay horta ilaahay wuu baneeyay laakiin waxaa jira bilaadanka ku jiro oo af Soomaali damiir ma lagu dhahaa damiirka bilaadanka qof ku jira wax uu yeeli karin ma fahantay dadka qaarna inay yeelaan walaga yaabo dadka qaarna maskaxdooda way ka weynaanaysaa ma yeeli karaan shoog ay ku noqonaysaa okay qof maxal ii jirtay jacayl isla soo marteen waqti isla soo qaadateen all that time maxal ii jirtay isla soo marteen marka filaysay inuu jacaylkaada miro dhalo ku nasato oo u wad meesha imaaday inuu hadda ii kooy ka dal doorto daldoorsi maahan waxbadsi wax lama jiro daldoorsi oo arkaa aniga waxbadsi haddii la gabadhaanaaba habeenii maalin waxaa dhal sanad kasta dhal taas waxaan isfaham waay mogtahay aduu ilaahay oolaad siinaa ee gabadha dhalayso oo waxba oo heshiis uu jirin waxaa dhihi kartaa hadda haddee family plan isticmaalsa no abay ani waxaa raba sanad kasta inaa dhashay yaa waa wax la isku fahmo nin waxa arkaysaa naagtiisa oo sanad kasta dhalayso the same time socdo inta u socota waxa bad meeshas ma yaalan tanaabo okay ilaahay soo ma xalaaleyn maxaa u diidan ilaahay wuu xalaalay maba diidan taas su'aal maba saarnabo banaankaas dhig waxa ka hadloona way loo tanaadulay iyo way u diidan laakiin jooji ما إلهي هو بحلالي مديدن أنا وحتى أذنك واو تنازل ويسن أنا وحتى أنت أذنك واو ديدن تين سمعها أذي وحي تنازل ويسن واشت أنا وحا ديدن وحوا يعني وحا كسر كوبايا قف بلا آدنا دمير كيس مسين يسون كذا إنه هبين سيسعد هبين صعد نو ما دعي ستاعي أوكي مدة كلا واي أذنك ما عندنا بوحا بلا تصرفته أرجع كودشان ماذا توري كودشان ماذا بيكوشتان كركرسان ماذا سريدو كركرسان رجي ودليسان سو marka sababta keenayso in rag galaysaan
sidaa kuu sheega waaye maxay tahay sababtaas maxay okay sababtaas waxay tahay dadka isku damiir maaha qof uu aqligiisa siinayn ciilka iyo maseerka meeshaas ka gaarsiinaya ninkaas oo sas kuma gansoonaadku midaha ka taqallus shaydaan uu u buubuuninaya wixii weena dhacdaa wallahi qofka markuu xanaaqan ma bala yaabay gabdhaas because qofka markuu xanaaqo wax kasta ka suurtoobo oo haddana ninka the same time nibana waxaaba jira ka soo gorbixin oo ilaa fiir ilaa ay aroosaan ilaa todobadooda iska jiraan iska sii maqnaanaya ma laga yaabaa ma la dhihi karaa familkan ba soo fiirneen ma la dhihi karaa maadaama gabdhaha ay waayahan dambe raggii qaar ay tureeyaan iyo qaar ay biyo ku gubaan ay tahay ma la dhihi karaa adinka kuwa wax dilaayo gabdhaha oo dhan maahan gabdhaha wax dilaayo wax laynayo tureeyada dadka la dhacayo masayrka xoogga u qabanayo waa dadka ay ku yartahay diinta barashadeeda ama quraanka aan aqoonin ama xadiis rasuulka sallallahu alayhi aqoonin oo diinta asaaskeeda aan waxba ka fahansanayn dadka waxa sameynaya waa wax dadka noocaas oo shaydaanku adeegsan karo misdheey karnaa horta dumar bas ma maseero raggana wuu maseeraa asaa weli maseerkiisa aad uga dareenkan dumarka gabdho badana waxaa jiro oo maxaa la dhihi jira laga yaabo ayagoo niman qaba inay wax kale nimankooda ku arkeen oo maseereen wayba furaan because ilaahay muxuu adig gabadha wax maanta ma furi karta ninka wuxuu leeyahay waa ku qabaa nin kale ma shukaansan karta nin kale ma guursan karta doonta ma yeeli karta magaalada meel aragta ma ka mari karto because waa la qabaa ninkina uu iska danaysta naag kale waad ifurna inuu iska yeelayna laga yaabo laakiin naagta haddii maanta wax lagu arko dad qaar in wax lagu arkaa laga yaabo dadka dhan musaafi ma wadahan ninka maba la tashanayo warqadeeda sms waa loo soo qoraa waxaa lagu soo dirayaa maxaa la jirta telefonkeeda meesheeba ku furanta xataa isla hadal ma jiro because power ilaahay siiyay awoodda meeshaas gaarsiisa diin waxay yartahay ma jiro diinta iyo damiirka way kala tahay qofku waxaa laga yaabaa hadduu xanaaq wixii loo leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wax ku dardaarmay nina u imaada wuxuu yidhi nabiga oo ila dardaaran wuxuu dhahay laa taqdab عروني نوكو داهي قال لا تغضبوا داي رسولته because تاس محو ير عرض الدين كستو هيستين أدا حناق ده بس حكمين كرنا جرو جذال كشلينا وس حكمين كرنا سو تاس حناق وذا كنا الدين تنوي قانا قبلها ما شاء الله دتك هذا جروح ويا برتين الدين هذا أهل مادي أدا أهل دوالة وذا برتين لكن عرضي ونبي كدر دارمي هيركي جرسي سنتا يقفك ويبدلي كرتامان كيسا اوكي تاسع رجع ولا ينسين سمع اوكي اصحابي برنامج كان معاو نقضي برنامج هل اسكو مري كريم لكن waxa idin sheegaya in ragga wali ay positionkii saxnaay ee diinta ogolaatay ee dhaqankii Soomaaliya oo ogolaay inay wali ku socdaan dumarkana waayahan dambe maadaama ay gaaladii iyo adduunyadii kala iyo wixii sinaantii cadaaladii beentaheeda loo sheegay ay ka daba gurguuranayaan waxa la dhahay waxaan رأيهم إني قلعدين أيان واركا أدينا وحوارتا إن أنا حد كني دافني مايا هرت أول سومال دقني لهان جرت قبل والعنصريين جري أيضا قريه كنا ولا العنصريين جري هير وحال جاري جر قبل عنت بدن معنيس قبل عانم عبي والله يوجد مايا أنا كم مجار مولي أنا بعدي ما كلا دقن جرواي مثلا تقف كستن وأجي سو عنصريين تدوا على قبل حتى وأنت على وجرا وعلى سلاح حسابته معه هل ناك يا أنت سأقولش ها أفرنا هلا جوز سيدي المسلمين تجي الصومالي يرتع الله بديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا جعلنا هاي سبسكرايب يلايك يشير أكيد we will be back with more videos إن شاء الله إن مردونا حال سوف ديسين جدونا أفرنين وكلا بدنا فكرة هذا الشيء جدونا محمد وعرقنا ميل على الوطورة okay good night